munaasabad lagu xusayay Sheekh Maxamed Macalin Xasan oo kamid ahaa culimadii waaweyneed ee ka shaqeysay faafinta iyo baridda diinta Islaamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabada oo lagu xusay kaalintii la milaawaanka ee uu sheekhu ku lahaa soo saarista culimo waaweyn oo iyaguna qayb lixaad leh ka qaatay fidinta diinta Islaamka geeyiga Soomaaliya ayaa waxaa munaasabada ka qayb galay mashaayikh iyo mas'uuliyiin kale oo dhammaantoodna ka sheekeeyay dadaaladii sheekha ee fidinta diinta Islaamka. kulankan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa looga hadlay taariikhdii iyo doorkii faafinta diinta Islaamka ee Allah u naxariistay caalamkii weynaa ee Sheekh Maxamed Macalin oo geeriyooday 20 sano ka hor. Sheekh Abuukar Xasan Maalin oo kamid ah culimada munaasabada ka qayb gashay ayaa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay kaalinta Sheekh Maxamed Macalin Xasan uu ka qaatay fidinta diinta Islaamka. sharaf ay tahay inaan kaga soo qayb galo xaflad lagu xasuusanayo juhuudii iyo dacwadii iyo saameyntii uu wadankeena ku lahaa Sheekh Maxamed Macalin Xasan. rumahantii waxa weeye culimadu haddii ay geeriyoodaan oo ay dhintaan waxaan dhimanaynin cilmigoodii iyo aasaartoodii. qofka caalimka ah dalkiisa iyo ummaddiisa saameynta ku leh waxyaalaha calaamaadkiisa in ilaahay uu aqbalay juhuuddiisii waxaa astaan u ah in quluubta ummaddiisa uu ku sii dhex noolaado muddo dheer oo fog dadka qalbigooda inuu ku dhex noolaanayo. kulankani waxa uu ka tarjumayaa oo astaan uu yahay Sheekh Maxamed Macalin Xasan raximahullahu tacaala raxmatal abraar weli inuu ku dhex nool yahay quluubta shacabkiisa oo marna aan la halmaami doonin. sheekha wuxuu yiri sheekh la dhihi jiray Bishr ibn al-Harith sida uu taariikhu Baghdad uu ku soo guurinayo al-Khatib al-Baghdadi wuxuu dhihi jiray إن قوما أمواتا تحيا القلوب بذكرهم وإن قوما أحياء تقسو القلوب بذكرهم. حديه جرى بشر بن الحارث وحجرى ضد علماء جريودي مركي مقعودة يا آثار تودي يا تراث كودي الآخرية ومضوا أي شيء دودا قلبي ودي يكون نولاني ومركي لغا تاريخيبا قلوبتا umadu ay noolaanayso ay xasuusanayaan alla ka cabsi iyo juhuudda sheekhaasi uu bixiyay mid la mid ah inay bixiyaan oo dadka qalbigooda uu ku noolaanayo waana dad dhintay laakiin geeridoodii ka bacdii saameynayaan ummadii markii taariikhdoodii iyo juhuuddoodii laga sheekeeyo. runtii sheekha wax badan lama aanan joogin ardaydiisana waan ka mid ahaa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa ka mid ah kitaabka qur'aanka ah ayaan ka wada dhageystay sheekha tafsiirkiisa min bidaayati ila nihaayatihi. weliba waxaan xasuustaa sheekha waxaan aad ugu jeclaan jiray qaabka eray bixinta maxaa yeelay sheekh luqawi uu ahaa sheekh luqawi ah oo naxwi uu ahaa. mashaayikhdii kulanka ka hadashay ayaa iyaguna waxa ay ka sheekeeyeen doorkii Sheekh Maxamed Macalin Xasan iyo sida uu ugu dadaalay in uu soo saaro culimo badan oo maanta door wanaagsan ka qaatay in ay dadka sii gaarsiiyaan diinta Islaamka. Sheekhuna Sheekh Maxamed Macalin Ilaahi subhanahu wa ta'ala waxa Allah horta waxa la sheegayo mashaayikhdu ay ka sheegayaan oo dhan asagoo ahaa haddana xaqiiqatan waxa u jeedaa inuu ka sii sareeyay Ilaahi maqaamka u gaarsiiyay wuxuu ka mid ahaa إلهي سبحانه وتعالى الضوامضة وكم النستي قدران هي أرضان ومدان صوماليات أسوي خارج كان أو بحر تاريخه كله يا خارج مصر إيوه سعودي قبل لكن أرضان وحكم دي إلهي الضوامضة وين وربكم النستي ودين الإسلام كصوص سرق هذي أو مدح هذا وصل ريو عيون تابو كم دي إلهي مدح بوا كدغي anigu sheekhana Sheekh Maxamed Macalin intan kaliya kala kulmay anigu ugu yarayaayo la kulankayguba ku yaraa kaliya hadii aan wax ka sheegaaba ku filan laakiin hadda waxaba dhameeyay Sheekh Abdullaahi Minhaaji iyo Sheekh Maxamed Guudi waxaba cadaatay mashaayikhda Soomaaliyeed oo dhan baxartiisa inay wada yihiin wax alla waxa hadda joogay iyo wixii ka horeeyayba xabtiisa Ilaahay ka dhigayba. Sheekh Maxamed Cabdi Salaan iyo Sheekh Abdullaahi Cismaan Minhaaj oo kamid ah culimadii u dhawaa Sheekh Maxamed Macalin
kana mid ahaa ardaydiisa ayaa si qoto dheer uga hadlay aqoontii ay u lahaayeen sheekha. kow markii kala kulmay tafsiirka inaan ugu tegay baqara ma aali cimraan waxaas markaas tafsiirka maray yaa maryam qnuti li rabbiki wasjudi warkaci ma'a raakiina tafsiirka halkaas soo maray sheekh markaas aniga kow aan kitab tafsiirkii waa fadhiistay waxa tafsiirka dhageysanay ardaydii Jamaal Cabdi Naasir hore ma loo arki jirin nin oo madrasa iskool dhiganayo oo duruus akhrisanay masaajid iimaan lama arki jirin sheekh aadan u xiriiri jirnay waxaan darasan ku ahaa jirnay gurigiisa iyo tafsiirkaas ku akhri jiray ugu dambeeyay tafsiirkaas ku akhri jiray sheekh xiriir weyn aan lahaan jirnay masaa'il fiqh markiis oo arko asiga anas yeeri jiray wuxuu dhihi jiray arrimahan arki iyo maaw waxaan weliga hilmaamay kelimadiisa uu ku galeysay tafsiirka markuu sheego say dhaxgaleysay ee anfacaysay hada tafsiirka waxa igu sahlan meesha sheekhi aan ka dhageystay markaan marahay hadda yaan u jeclahay iskaal bigagama jira marka wixiis oo dhan baa nuur ahaa waxaa lidin kan fiicanayno kelimada ka soo baxdana waa sida ka duqan qiiq oo kale weeyaa la yiri dadka ma anfacayso marka ilaahay waa nagu anfacay. Sheekh Yuusuf Cali Caynte iyo Sheekh Maxamuud Sheekh Ibraahim Suuley oo ka qayb galay kulanka lagu xusuusanayay Allah u naxariistay Sheekh Maxamed Macallin oo ka mid ahaa culimada ugu caansan dalka ayaa ka sheekeeyay taariikhda sheekha iyo dhaxalkii wanaagsanaa ee uu uga tagay dalka. Maxamed Macallin Xasan raxmatullaahi calayhi wuxuu ka mid ahaa culimo aad u waaweyn oo Soomaalida ay lahaayeen oo isku mar ku soo beegmay بقطرة الجبار أيوة كمده هاي لكن أسيقا وحو ديرات لها شخص وحساسا في تاريخ الصومال أنا منطقة القرن الأفريقي أيوة هاي شيخ وعنسا وتأثير كبير waxaan oran karnaa marka kuma soo koobi karna erayo kuma soo koobi karna sida hay asiga iyo dacwadiisa iyo Sheekh Macallin dhowr marxalado maray marxaladda koobaad waxay marxaladda Soomaaliya wax ku barta gaar ahaan dhulkan Soomaali galbeed iyo Hargeysa tagisiisi iyo Soomaalida dhexdeeda Soomaali qarbi iyo Soomaalida kala dhexdeeda oo wax ku baranayay oo ku baranayay علوم العربية iyo fiqiga iyo waxay soo raaca waqtigaas marxaladda labaadna waxay ahayd marxaladda uu Masar tagay oo jaamacada al-Azhar galay jaamacada al-Azhar oo galay waxa weeye ilaa uu ka helay ama uu ku baasay shahaadada leeyahay master degree ama magister wuxuu tafsiirkiisu ahaa oo hadafka ugu weyn oo maaragtay higsaha oo ahay كتاب كان قرآن كان وحده إنه تذكر ما هذا القرآن محله جديده الدنيا المحل أبوره إلهي محون نوكان شاء الله ما تجوجنا ما أنت واجوجنا برينا واكتجينا ما حيتها وحص تفسيرك أنت قوين أو ركز جري معناها وحو هاي تفسير روحي ونفط الله أو شيخ محمد معلم أيوة ذاتك كوسي كردي طبعا شيخ دبعت بدن باللوجستي تفسيرك أو أخرناي وأكسنتين والحري وحلو حري وحو كحري حبسك كويا لما قال هذا بيدبل اللي يقين اللي بتنجرو تضرسنا كحري إن لغما موسى لغنا هذله فضيلة الوالد الشيخ محمد معلم حسن رحمة الله عليه وها أبيه صحوة أما براروجة صوماليدا لنا به كره سيدا وها مفسرين تي قدام لها نك اللي يراهدو ابن جرير الطبري رحمة الله عليه شيخ المفسرين سيدا لو يراهدو أسأنا به كره شيخ مفسري الصومال معان يور معان مال وموضع دمين كره ور كستوت شيكتا وحوا كدمن dadka soorka aad keentana waxba ka dhiman marka waxaan muraadkeen u ahaa in maaragtay hawshani wixii maanta nooga aadan in laga yiraahdo maanta kaliya aan lagu ekeenine wax taxano hoos socdo
ay noqoto marka waqtiga aad soo bixiseen fi miisaan xasanaatikum allah yeelo dhammaan cidda maaragtay nagala qayb gashay ee hadda iclaamka iyo ay u horeeyaan ayagana si gaaran ugu mahadcelinaynaa waadna mahadsantihiin. sheekh maxamed macalin xasan ayaa door lixaad leh ka qaatay muddo sanadaha ahana u soo dhabar adeegay sidii uu diinta islaamka u bari lahaa isla markaana deegaano badan loo gaarsiin lahaa iyada oo dadkii uu wax soo baray maanta ay yihiin culimo waaweyn oo door muuqda ku leh waxbaridda iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed.